Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibada channelka waxaan ka hadli doonaa taxanihii saddexaad waana midkii ugu muhiimsanaa wuxuu ka hadli doonaa qaabka u bedeli lahayd passwordka routerkaaga aad shirkadda kala soo qaaday waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid su-aal ah maxaan u bedelayaa passwordka routerka shirkadda aan kala soo qaaday run ahaantii qof walba wuu yaqaanaa passwordkaasi inuu yahay Hawaii ee capital DM haddii Edisel uu yahay sidoo kale haddii uu TP link yahayna qof walba wuu yaqaanaa inuu yahay admin iyo password in lagu furo sidaa daraaddeed internetkaaga waxaa kontroolkiisa iyo awooddiisa kula wadaaga dhammaan asxaabtaada iyo qof walba isku day inuu kaa bedelo passwordka xitaa waxay awoodaan passwordka inay kaa bedelaan internetka inay ka saaraan dhammaan qof walba internetka isticmaalo si password kuu gaar ah aad u samaysatid marka ugu horeysa waxaad booqanaysaa browser adiga isticmaashid meesha kore ee search box waxaad qoraysaa default gateway hore ayaan uga soo hadalnay fadlan haddii aadan soo daawan muuqaalkaas descriptionka videoga ayaan soo dhigi doonaa insha allah waxaad qoraysaa default gatewayga internetkaaga oo ah 192.168.1.1 kadib enter leh waxaa kusoo bixi doono login form oo noocan ah meesha ugu horeysa waxaad gelinaysaa admin haddii uu passwordkaaga aadan weli bedelin waxaad gelinaysaa Hawaii ee capital DM kadib waxaa kusoo bixi doona window noocan ah waxaad dooranaysaa maintain waxaad sii dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay account management waxaad sii doorataa administrator kadibna edit meesha kore waxaad gelinaysaa passwordkaaga haddii uu default yahay ka dhig Hawaii ADM meesha new passwordka waxaad gelisaa passwordka haddii aad aragtid inaad ka dhigatid routerkaaga markaad dhamaysid kadib save dheh hadda sidan waxaad ku bedeshay passwordka routerkaaga internetkaaga awooddiisa iyo kontroolkiisa adiga ayay khaas kuu tahay ma awoodi doonaan qof walba isku day inuu kaa bedelo passwordka internetkaaga ilaa aad kala wadaagtid passwordka saxda ah waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan fadlan haddii ay tahay booqashadaadii koowaad la wadaaga asxaabtaada sidoo kale ha ilaawin muuqaalka inaad like saartid channelkana subscribe aad